banaadir waxaan meeshaan uga mahadcelinayaa intii ka soo qayb gashay intii naga maqan oo uga soo qayb gashay live uga soo qayb gashay waxaan kaloo u sii mahadcelinayaa intii na caawisay oo maxaa la dhihi jiray nagu caawisay arrintaanaytid waxaan mahadcelinayaa dadkii oo dibadda nooga imaaday kuwa dalka joogo walaalayaal بسم الله الرحمن الرحيم runtii safarkan waxaan u soo galnay shirkan aad iyo qiimaha iyo qaayaha badanne ee ka dhacaya ama ka dhacay magaalada hadda ku sugannaho Germany oo community ballaaran oo aad u weyn badan oo ka soo jeeda gobolada banaadir shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo qaybo kamida galmudug isugu yimideen iyagoo ujeedadoodu tahay dhibaatooyinka dhulkaas ka jira ee siyaasadeed iyo xuquuq darrida siyaasadeed inay wax iska yiraahiin kadib markay in ka badan 18 sano ay iska dul qaadanayeen aanay ula muuqato in lagu tumanayo oo xuquuq darri badan meeshaas ka muuqato inay arrimaha ka tashadaan ilaahay wuxuu noo suurto geliyay inaan isugu nimaado shirkaas isku wareysano waxaana la isku afgartay arrintaas arrin laga aamusi karo inaysan ahayn loolan dhaqaaqo waxaa ka soo qayb gala shirkaas communities ama diasporada dadka ka jooga areadaas North America iyo Europe iyo Arab iyo Africa qaybo kamid ah dad aad u tiro badan aqoon-yahan haween iyo ragba isugu jira odayaal culamaa u diin isugu wada jira waxaa la isku afgartay in arrintaas si xoog leh looga shaqeeyo si suurtagal ay u noqoto dadkaas inay xuquuqdooda siyaasadeed systemka federaalka ee Soomaaliya hadda ka jira ay maaragtay uga qayb galaan mana ka tanaasuli doonaan arrintaas waxayna u bixi doonaan wax walba ee qaali iyo raqiis ah ee arrintaas ku suurtagelayso sida aad kulley meediyadu ay maqli doonto shirarkii soo socday waxaan filaynaa in shirka ugu dambeeya oo October ka dhici doono banaanka dhulka Soomaaliya halkaas oo lagu soo afjari doono laguna soo gabagabay doono wixii la tagi lahay Soomaaliya waxaan u diraynaa message dawladda dhexe ee ku amarku taaglaysa gaar ahaan gobolka banaadir oo dhaqaalihiisina si aan sax ahayn u isticmaashay dadkana aan waxba ku celin dhibaatadana ku haysa wadooyinkana ka xirantay dhaqdhaqaaqii maxaa la yidhaha businesskii amba ganacsigana oo magaalada shaqayla yahay magaaladina ay dundumayso inay ka waantoobaan ay si fiican ugu noqoto recordkeeda dawladnimo una ogolaadaan dadkaas inay xuquuqdooda practice gareeyaan oo ay xuquuqdooda sida dadka Soomaaliyeed u helaan maxaa yeelay qaranku ma dhismi karo haddii qayb kamida la isku dayo in la burburiyo ama xuquuqdooda la duudsiiyo waxaana ka soo baxna burbur tiro badan marka inaan ku noqono diyaar uma nihin marka yaana la ku qasbin dawladda taas aan u sheegaynaa waxaan kale u sheegaynaa dadka ka soo jeeda gobolkaas isaga ah inay ka waantoobaan inta beneficiary ku ah ee ku shaqaysanaysa gobolka magaciisa ee inay shareholder ku noqdaan dawladda raba dadka xuquuqdoodana aan maaragtay mar walba inay duugayaan isku dayaan inay u soo noqdaan dhibaatada dalka ka jirta iyo gobolka ka jirta dadkooda haysata inay gacan ka geystaan hadday isku dayaan inay ay maaragtay dadkaas ay maqli waayaanna inay positionkooda siyaasadeed iyo sumcaddooda intaba ku wey doonaan ma labadaas masajaan gudbinaynaa waxaan rajaynaynaa guul
iyo maaragtay dadka naga soo horjeeda inay gacan ku gambad noqdaan oo howlahayna ay nooga dhex baxaan saasaan rajaynaynaa insha allah aad u mahadsantihiin السلام عليكم معلم وناكس كل جين دنيا دافيد ماشى ككل جوكتين وحمانت جوجنا جرمال عن إيمان جمعيه شلي أسبدي أو حناس ورتقى الشيء إن صمينا برنامج كاستحاد حقوق الأرادين تقبل كبنادر اللي استجي مد دنيا دافيه هذا وحرجين هنا إنه نقضه شركة مردلا محيط كان كحيق سويدن وقد عدونا كدبنا وحالي ذا كجا فديا gaar ahaan dadka gudaha wadanka joogo inta ay qosayso inta maxay xaqooda ka maqan yahay xuquuqda aan raadinayna waa dastuuri ma aha mid dad lagu dulmihaayo ma aha mid maxay haytooday munaafiqnimo waa mid xaqa waxa rajaynaynaa inta xaqooda ka maqan yahay inay xaqooda u istaagaan waxa la yiri qofka meesha ka yimid haduu soo ogeyn meesha u socdana ma ogo iyo waxa ka maqan waa mahadsantiin waxaan maxay tahay mahad celinayaa dadkii soo abaabulay gaar ahaan asli axmedey aad u mahadsantiin maalin wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقو نور شريف محمد نور إنجي كراميدا دائرة الصوماليات وحان كيما هذا ودن كتليانيغا وحان كسوغنا هاي جرمال كغارهان قول كايسن وحان مانتا فرحادينا واحد دمان maanta waa gabagabadii kulankii aan isugu nimid barnaamijkan qiimaha badan oo aan kaga hadleynay mustaqbalka aayaha dadka degan gobolka Banaadir 3 maalin oo shir socday waxaa maanta joognaa gabagabadiisii farxad aad u weyn ay tahay inaan ka soo qayb galo inaan maanta dareenkayga ku muujiyo inaan maanta imaado halkan farxad ay tahay ilaahay waxaan ka baryeynaa anagana waxaan ku dadaali doonaa dantii aan isugu nimid inaan ka dhaweeno insha Allah ta'ala reer Banaadir waxaan leenahay dadka degan xuquuqdoodii insha Allah way heli doonaan dhamaan niyada khayr loo sheego dadaalana uu gaaraa insha Allah waana guuleysanaynaa waxaan u mahad celinayaa dadkii nagu soo casuumay oo nagu marti qaaday insha Allah ta'ala waxaa inoo balan ah shirka dambe Sweden assalaamu alaykum wa rahmatullahi bismillaahir rahmaanir rahiim aniga oo Ruqayya Cabdo Cali Nuux waxaan ka imid wadanka Holland waxaan u imid maanta shirka saddexaad ee lagu qabtay ee ay jaaliyadaha adduunka oo dhan isugu yimideen kuwaas oo aad uga hadlayay arrimo badan oo ay ugu horeyso sidii xaqa gobolka Banaadir ee dastuuriga ah aan u heli lahayn waa xaqeeni waxaan rajaynayaa go'aanada ka soo baxay inay noqdaan kuwa dhaxalgal ah oo la fuliyo waayo go'aanka warqadda uu ku qoran yahay waa ku qornaan karaa laakiin wuxuu u baahan yahay fulin kuwii fuliyo waxaan kaloo aad ugu adkayhayaa dhammaan dhalinyarada haweenka odayaasha inay gacmaha isqabsadaan inay u istaagaan xaqa ay leeyihiin xaqaaga daan soo dhacsan ninna ku soo dhici maayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم مقعي محمد أحمد عدى waxaan ka imid dalka Holland waxaana ka soo qayb galay shirka xuquuq raadinta gobolka Banaadir ee walaalaha Jarmalka ay noogu qabteen sanadkan waxaan aad ugu faraxsanahay sida quruxda badan ee nalagu soo dhaweeyay sida quruxda badan ee noogu dhacay shirka waxaan aad iyo aad jecelahay in aan message yar halkaan uga diro dhammaan ummadda Soomaaliyeed taas oo ah gaba yar oo aan ku diyaariyay in aan uga qayb galo gogasha Jarmalka ee xuquuqda gobolka Banaadir bismillaahir rahmaanir rahiim dulqaad u lahow damiinka dabaalkana hay isku daynin danyuuska dalkiisa iibsha haddooran mid doolar doona dariiq nabadaynta owda nin doorkana kaa dilaya dambiila ninkuu dilaayo duhurka salaadu jaaya dabeeca munaafaqaynta diyaas baro waa dulaale haddoonan damaanad laawe midaan baran diinta eebe dariska dalkii dantaada damqayso difaacyadaada duruufaha kuu dalbaaya adduunyada kaa daboola dareenka colaadda doona dameerka kugu diraya degdeg adigoon u duulin
hadduu jiro duul ku diidan dadaal nabadeed ku doono haddayrin ninkii dareema dadaalyaridaada duugtay iftiinka dalkeenu gaadhay shirib yar ayaan rabaa inaan kusoo afmeero taasoo ah saddex walxaatoo deelku taal waa diidnaaye duuqaa uu sheeg dulaalo gaalaa soo dirsee waa diidnaaye duuqaa uu sheeg dib u dhiisdii doolaarka daaq waa diidnaaye duuqaa uu sheeg dariiq dhagxaan lagu dajaa waa diidnaaye duuqaa uu sheeg haddana waa ninkixi dadkaanu waa dulman yehe digniin uu diraa duuqa weyn minowsa dadkaanu waa dulman yehe digniin uu diraa duuqa weyn minowsa diidoo daanta guud digreeto laygu dirqimaya digreeta laygu dirqima gobolka banaadir duq magaalo damba loo soo magacaabi maayo mudana madaxweyne adigoo mahadsan risaaladaas ku soo gaartay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة عن اسكون نمد أو لو قبتي جيرمان أو أي نو قبتي ولاشين أصلي أو أحد إنا كوضة تشانو أرمها قبل كبنادر بنادر ستيد إيو قلمود قاب كمدة أو عن كهالي نقاب كسياسة جرتا حد كسوعته عشور إن لقى قاعدة قبل كي بنادر وأنا وحبال لو قبل إنجن سوشيال بوليسي إن لو هرمريو إذا تهذا كلا أو أحد أن كجرنا إن كهذا قضب كأفرتني سديدات فرقة دي سلبات أو أقولان سوق بنادر ستيد إلا دسو إنجرين إن لقب إنجرين وحيابها خرافات كأي دولة وشيك تبوشد هذا برلمان كأي كجارين سو مسير كجوال كبنادر أحد ومسير كجارس أي تهاي سمينتا عاصمة إن عاصمة ماشية نقونس أنا أحين ninka yimid boosaasan ninka yimid jubbaland ninka yimid gobolada kale in ay u dhisaan gobolka banaadir ee dhahan annaga go'aan ka gaarin taasna waa khalad dawladdan waxa u sheegaynaa inay hadda dadku u diyaarsan yihiin inay u istaagaan ay sameystaan banaadir state ayna dhamaatay beenta ahayd in lacagtii lagu shubto jawaabka suud la xirto oo boorso lagu soo qaato taasna waa ka soo horjeednaa shir daba ayaa ka dhici doonto Sweden October marka insha Allah taasna waxaan maashi u sheegaynaa bulshadeena oo ka tirsan dawladda nabad iyo nolol annaga waxa u naqaanaa nabad nolol iyo naxdin nabar iyo naxdin u naqaanaa marka nabar iyo naxdin waxa u sheegaynaa way dhamaatay waqtigii laga cashuurta Muqdisho jaabka la gashanayay oo lagu burburinayay seedada kale marka waxaan rabnaa inay maashishkan u sheegno Muqdisho banaadir state waa taagannahay waxaan u taaganahay qaabka u dhisi lahayn إن شاء الله last meeting لقبض دونا حلو قبض دونا Sweden. السلام عليكم. ماشي أنا حاول ما عندنا خيار تكشلا شرفت الله نسود ويين ولا شيء أصلي أنت جرمك كنول وحماشة أسكوب إيماني إن عن كهذلنا وقد عن لنا هاي وقبل كبنادر نقول بالحقوق دي سنو راسده حقوق لي هاي وحدة لقبر يا معها waxaan leenahay xuquuqdeena aan helno xuquuqdeena waxaan anaga leenahay waa inaan helnaa waana mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله وحان فرح سنحي إن داد ولا لهنا أي نوغي مادان الدنيا دعالة أنك أقول جرمالك gaar ahaan hadda magaalada Wiesbaden waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan idin soo dhaweyno in aan ka tashano aayaheena iyo masiirkeena maqaamka gobolka banaadirna la raadiyo shirar badan ay jiray oo ka soo dhacay Netherland Switzerland kan waa kii saddexaad ee Jarmalka ka dhacay gaar ahaan magaalada Wiesbaden marka إن شاء الله تعالى كلامه وحكي عدونا سويدن وحلنا قف والباء ويكم مكان أيضا رات سنيس أنا جو حنا جم مكان حقي قبل كبنادر أمام مقام كي
siyaasadeed ee gobolka banaadir ayaa naga maqan waana raadinaynaa in allaale intii aan raadi karno waana helaynaa insha allahu tacaala sababto xaq aan u leenahay inaan raadsanno cid walbana wixii ka maqan ayadaa raadsato marka insha allahu tacaala khayr badan aan isku ognahay soo dhawaada welcome in Germany aan leenahay intiina kale insha allahu tacaala waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.